munaasabada ballaaran ee xilka kula kala wareegay gudoomiyaha hore degmada Beledhig sidoo kale gudoomiyaha cusub ee degmadaasi loo soo magacaabay ayaa ka qabsatay barxad ballaaran oo ku taala dawladda hoose ee degmadaasi waxaana madashani ka soo qayb galay mas'uuliyiinta laamaha kala duwan ee dawladda u jooga degmadaasi xildhibaano kamid ah golaha deegaanka degmada Burco Salaadiin Cuqaal Haween dhalinyaro iyo waxgarad kala duwan ugu horeynba gudoomiyaha hore degmada Beledhig Cali Faarax ayaa ka waramay waxyaabihii uu qabsoomay intii uu xilka hayay waxaana uu yiri xaflad lagu kala wareejinayo anigoo ah gudoomiyaha hore degmada iyo gudoomiyaha cusub ee la soo magacaabay dadweynaha reer Beledhig ee halkan jooga iyo magaalooyinka degmada xukunto qurba jooggeeda kuwa odayaasha ee degmada ku jira gobolada jooga dhammaanba shacabka reer Beledhig degmada gudaheeda iyo inta xukuntada sidii fiicnay ee shacabkeedu ila shaqayn jirteen ama maamulkeeda ula shaqayn jirteen aad iyo aad baan dhanka kale gudoomiyaha cusub ee degmadaasi loo soo magacaabay Fuad ayaa isaguna dhankiisa ka waramay waxyaabaha u qorshaysan inuu qabto degmadaasi waxaana uu shaaca ka qaaday inay ka go'an tahay horumarinta iyo taabagelinta hawlaha shaqo ee deegaankaasi gudoomiyaha aan xilka la kala wareegayno Cali Faarax Cali aad iyo aad baan u salaamayaa وحويان وحوالي ما قدر كإلهي يقول مالان مرك إلهي قرآن ومر يقفك مرك إلهي قدرنا وتيجي بالله ما يوالله ولا شقينا يا ولا سنين اعتاقيها كفتن كنا ولا لوقليها يا الله كفتن يو ولا لوقليها وحي قوتنا وكم سنتينا وحقلك ما يدخل طرفي يا أو مامو قوة وحي ثواني قصارى يا نقول كردين إنسان مر والله Suldaan Cigal oo kamid ah salaadiinta gobolka Togdheer iyo sidoo kale xildhibaan Maxamed Turtur oo ka tirsan golaha deegaanka degmada Burco ayaa iyaguna hadallo soo dhaweyn iyo hambalyo isugu jira halkaas uga jeediyay labada gudoomiye xilka la kala wareegay dad badan baa u haysta Cali Faarax Dheere in la eriyay Cali lama eriyay Cali wuu dallacay xilka madax xeerarka qaranka oo xaq u leeyahay uu dallacay yaa cusub waa nin hore degmada uga soo shaqeeyay وأنا سامين يو حقبك كل هذا دجمة Beledhig ودجمة وين قرا لوجا سو شكل قرا آخر وآخر شرطات ما تسمى الآن ما هي مشاورات أكثر صباحي من هذا واحد قرا اليوم من هذا واحد قرا اليوم waxa iyaguna sidoo kale halkaas ka hadlay qaar kamid ah cuqaasha iyo waxgaradka ka soo qayb galay munaasabadaasi xogayaha gobolka Togdheer isagoo xilka u kala wareejiyay labadan mas'uul ayaa isaguna soo dhaweyn ballaaran ku qaabilay gudoomiyaha cusub ee deegaankaasi loo soo magacaabay waxaana sidoo kale uu ku amaanay gudoomiyaha hore degmada Beledhig Cali Faarax Dheere xilkii uu hayay deegaankaasi كلي وقالوا إلى أنتي أدمش جوتي وحنا قبضي إلى قولين مذكرة عين ودملة وهو وعمله هاي ده أبغى سكرنا المقالة ترى دكتور شقيسي من اللي يدي شيء يومها وقالوا إنسان إنه وحنا هو وأنا بسنة إنه يعني نك صباحية كنت أقول لي وقتي ذي ومحمد حسين إسماعيل محمد موت الشبكة العالمية برعو أونلاين مقالة برعو.